soo dhawaada ninkan tuuga gaarigan intuu ka soo dago gabadhan wadada maraysa boorsadeeda kula dhaga iyadana ma isdhibayso boorsadii intay u tuurtay markii uu ka daba orday gaarigiisii ka kaxaysanay midkan isagoo yaaban ayaa waxa uu imaanayo ninkan askariga wuxuu weydiinaa marka gaarigaas halkaas mara adiga miyaa laga dhacay wuxuu ugu jawaabaa ha askari gaarigaas aniga iska lahay naag walna inta ii timaaday gaariga iga kaxaysatay askarigii wuxuu arkaa inuu ninkan gacanta ku hayo boorsada gabdhaha wuxuu weydiinaa mar labaad boorsadan gacanta ku haystiyaa iska leh isaguna si aan looga shakin askarigii wuxuu u sheegaa inuu boorsadan leeyahay una kalarkan jecel yahay ugu dambeyn askarigii ninkan wuxuu ku dhahaa soo bax saldhigii raac si aad dacwadaada u qorato xoogaa kadib markii saldhigii la keenay isagoo meeshan fadhiyo wuxuu arkaa in sawirkiisa derbiga lagu dhijiyay laguna qoray waa tuug intuu sawirkii derbiga ka soo dhijiyay isagoo fiirinaya ayaa albaabka qof ka soo galaa wuxuu bilaabaa markii inuu waraaqadii laqo qofka albaabka ka soo galaya waa gabadhii uu mar dhaweeta boorsada ka qaadanayay waxay ku dhahay ayaantan tuugadu way soo badatay qofaa wuxuu iga qaatay boorsadeedii qofkaasna wejigiisa ma arkin oo wejiga u xirnay ee adiga tuugadu maxay ka soo xado maxaad meesha u wuxuu u sheegaa in taleefankiisii iyo boorsadiisii ay tuuga ka qaateen gabadhiyo wuxuu ku dhahaa waxa meeshaas maraya fiiri markii ay sii jeesatana boorsadii oo mar dhaweeta ka soo qaadanayo qarsana iyadana markii ay meesha fiiriso wax dhan ma arkayso wuxuu ku dhahaa marka waxaa laga yaabaa waxaas inay indhahayga oo keliya ahaayeen isagoo hadalkiisa sii wato ayuu wuxuu dhahaa haddii qofkii boorsada ka qaatay uu wejiga u xirnaay booliskuma soo heli karaan qof wejiga u xiran yahay marka ma iska dhaaftid oo gurigaaga iska aadid boorsadan iska ilowdid iyaduna waxay ku dhehaysaa waa saxantahay wejigiisa ma arkin laakiinse waxaana ujeedi waa furaha gaarigiisa waa ka soo qaatay booliska waxa u dhiibaa isaga gaarigiisa kadib boolisku waxay bilaabayaan inay raadiyaan ugu dambeynna tuugiyo meel iska fadhiya soo qabanayaan xoogaa kadib gabadhii way iska bixaysaa midkaana waxay u sheegaysaa inay soo laabayso isaguna wuxuu arkaa ninkii askariga yahay kombiyuutarkiisii oo furan intuu soo qaato wuxuu koobiyeenaa gabadhii hadda u imaanaysay sawirkeeda intuu ku qoro way baxsato wuxuu ku dhejinaa meesha uu sawirkiisii ku dheganay xoogaa kadib waxaa imaanaya askarigii oo wada waraaqadihii uu ninkan dacwada ku qori lahay askarigana waxaa ka daba imaanaya gabadhii boorsada laga xadaya si ay iyaduna dacwadeeda u qorato midkan tuugana sawirkii intuu fiiriyo wuxuu dhahaa gabadhan iyo sawirka meesha ku dhigan way isku eg yihiin maxaa waaye askarigiina gabadhii oo leh aniga dembi malihi ayuu qabanaa wuuna xiraa midkaana intuu soo istaagay isagoo dhahaya middan waa midii gaarigayga iga xadda ayaa waxaa ka soo dhacaya boorsadii gabadhii markii ay boorsadii aragtay askarigii waxay ku dhehaysaa waxaan gaarigiisa ugu xaday si uu boorsadeeda dib iigu soo celiyo laakiin askarigu qoftaan hadalkeeda ma dhegaysanayo furihii intuu ka soo qaado midkan u dhiibaa wuxuu ku dhahaa naga raali noqo waa iska bixi kartaa isagoo bixi raba ayaa gabadhii waxay dhehaysaa waxaan rabaa hal jaanis in la isiiyo si aan taleefankaygii u wacdo askarigu ma ka diidayay jaanis oo siinaa taleefankiisa intuu u dhiibay taleefankeeda wacanee taleefankiina wuxuu ka soo dhexdhacaa midkan boorsadii uu gacanta ku hayay kadib askarigii midkan intuu u imaado wuxuu ku dhahaa soomaadan igu dhihin boorsadan aniga iska leh gabadhii askarigii waxay ku dhehaysaa haddii uu boorsadan leeyahay waxaa fiirisaa taleefanka ku dhex jira sawirka saaran askarigu markii uu taleefanka fiiriyo wuxuu arkaa inuu saaran yahay sawirka gabadhan askariguna caddayn intaas ka badan ma sugaayo midkii tuugaayo xiraa muuqaalkun intaasoo ka ekaaya leegno saar